markuu soo galay ayuu ku yidhi ilaah baan kugu dhaarshay ma jini baa tahay mise insi baa tahay kuma duraynaye ha iduraynin ayuu ku celceliyaa quraanna wuu akhrisanayaa wuxuu ahaa wiil xoog u qalbi adag oo maasha allah wuu soo socday maya waxay ku tiri insi baan ahay yahay taabani maxaa ku dhigay meesha buu yidhi haddaad insi tahay wuu u soo dhawaaday agteeda ayuu istaagay maxaa ku dhigay buu yidhi haddaad insi tahay dadkaagii aaway way u sheegtay dhibta haysata ayay wax uga sheegtay waxay ku tiri dhibtayda waan kuu sheegayaa laakiin cid bili-aadmiya ha u sheegin waayahay ayuu ku yidhi meeshii markii uu arkay gabadhani meeshay ku nooshay xaaladii ku nooshay ayuu yidhi waan ku caawin doonaa laakiin iminka asxaabteeda ayaan la socdaa ma rabo in ay dareemaan inuu qof meesha joogo waan baxayaa markaan baxo sidii horean ula dhaqmayaa markaan tagno caawa meesha ka rawaxno anigu waan kuu soo noqon doonaa 12 habeenimo waxaad ii sheegi doontaa sababta iyo wixii dhacay iyo sidii wax u xalin lahayd ayaan eegi doonaa waan ku imanayaa imikana meeshaad iska joog meesheedii bay iska joogtay wiilashii bay ka fiirsanaysay meesheedii wiilashii markii ay casarkii cadaadis sii dhacayso maqribkii meelaha gaadhay bacda casarkii noqotay maqribkii ay ka tagaan ay wiilashii iska tageen sidii markii hore u ahayd caadada wiilkii ay sugaysaa gabadhiina oo isleedahay tolo goorma ayuu soo noqon doonaa waxay sugtaba wiilkii 12kii ayuu yimid sidii uu u sheegay markii hore markii uu yimaday wuxuu ku yidhi soo bax kaalay banaanku iska furaashteen gaadhiga ag hoostiisa meel ah markay iska furaashteen cuntadii ayuu u keenay cuntuu keenay iyo cabitaan iyo alaab badan u soo iibiyey wuxuu ku yidhi kow wax cun kadib baad ii sheegi doontaa markay wax cuntay ay maasha allah nafistay gurigii cidladahaa ka soo baxday ay hawada u soo baxday ayuu ku yidhi ii sheeg maxaa dhahay haddaba waxay u sheegtay dhibteedii iyo say ugu dhacday iyo wax kasta waxay ku tiri ii caawi wuxuu ku yidhi imika makuu caawin karo waqtigan xaadirka waxaynu sugaynaa intaad ka dhalaysid aynu sugaynaa laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan ku caawiyo intaan ku caawin karo kaamana tegayo insha allah garabkaagan ahaan doona gabadha yar waxay dareentaa markasta waqtiyada waxay dareemi jirtay habeenkii wax qaylinaya jiman is eryanaya dad is eryanaya jiman iyo waxbay ku riyoonaysa yani ay maqlaysaa habeenkii markay seexa istiraahdo oo ma seexan karto laakiin muddadii hore markay muddo joogtay waati iskala qabsatay imika waxay bilowday inay sanqadh iyo wax maqasho iyo wax qaylinaya marka iyadu ma oga ee mididii ay soo qaadatay ay dhibtu uga timid sanqadhana waxay sheegtay inay uga timaado meeshaas qolkaa ay furtay markaas wiilkiiba u sheegtay inay saasi jirto marka wuxuu sameyn jiray wiilku habeenkii wuu u iman jiray wuxuu seexan jiray banaanka gaadhigiisa dhexdiisa iyadana gurigeeda iska seexan jirtay muddo sidiisay u ahaayeen ayay u sheegay wuxuu weydiiyey alaab miyaad meel ka qaaday ayuu ku yidhi markaasay tiri haa midi ayaan soo qaato waxaan is idhi hadday wax kugu dhacaan ood u bahati wuxuu ku yidhi alaabtan meesha kasoo qaaday ku celi insha allah codadkan iyo qayladan iyo dhibtan aad dareemaysid way joogsan doonaan mididii ay meeshii ku celisay walxamdulilaah waxaa ka tegay wixii is eryanayay ee habeenkii qolkaa kaga soo bixi jiray waxay wiilkii sidii ula joogaba isagu mabuu ka tegin oo habeen kasta meeshaasuu seexan jiray aroortiina wuxuu ku rawixi jiray gurigiisii subxaanallah waa qof ilaahay u soo diray wuxuu ku yidhi waxaad jirtaa 9 sano soo maaha waxay tiraan 13 sanaan jira
ma dhici karta buu yidhi. Qofka ku arka wuxuu oranayaa 9 sano ayay jirtaa. Waxaa dhacday inay gabadhii waqtigii la gaaro ay dhalay rabtay dhakhtarka la geyn lahaa. 9 bilood ayay meesha ku xiran tahay gabadhaasi. 9 bilood wax yar la ayay ku xiran tahay. waxaa dhacday maalin inay xoog u xanuunsatay casarkii ilaa maqribkii. xoog bay xanuunsanaysay, xanuun fara badan baa hayay, iyadoo ma garanayso fool iyo waxaya waa ilmo yar. wiilkii ayaa soo istaagay, tiyo xoog u xanuunsan, maxaa kugu dhacay? Istir xoog baan u xanuunsanahay ilaa casar. wuxuu yidhi dhakhtar baan ku geynayaa, ina mari. waxaa weeyaan buu yidhi xilligii waqtigii foosha ayaad gaadhay wilaadadaada, dhakhtarkan ku geynayaa. gabadhii kiyasaas kule ayuu gabadhii miirka ka tagay. way dhacday, wuu soo qaaday. wadadii markay soo qabsadeen ayay muddo cabar markay soo socdeen ayay soo toostay. waxay ku tiri xageed ugu wadaa, xageed geynaysaa? wuxuu yidhi dhakhtar ayaan kuu wadaa. waxay ku tiri ma haysto sharci aad dhakhtar igu geysid, mana iyo qof la qabo, seebay ku dhici kartaa? wuxuu ku yidhi dad faamiligeyga asxaabteeda ayaan ku geynayaa meeshooda. waxay tiri okay. meeshii ayuu geeyey. waxay ku dhashay qaliin. markay ku dhashay wiil ayay dhashay. maasha allah. markay wiilkii dhashay way ku faraxday, waayo waa waxa keliyay adduun iyo cid baa haysatay intaasoo bilood isla soo noolaayeen. waxay samaysay waxaa lagu yidhi ilmahani wuu xanuunsan yahay, wadnihiisu waa daciif, waxaa la gelinayaa ayaa layidhi emergency-ga ayaa la geynayaa, qolka emergency-ga. halkaas ayaa lagu haynayaa. way naxday, murug baa lasoo daristay, waayo iyada ilmaheeda way jeceshahay, way rabtaa, ma rabto inuu ka dhinto. subxaanallah, ilaahay baa raxmad u geliyey. iyada qur-aankay akhrisanaysay, ilaahay baa iimaanka ku sugay. ilmaheeda way rabtaa, may ku fikirin inay tuurto. waxaa dhacday in lagu yidhaahdo 7 kadib waad ka baxaysaa meeshii. horta ilmihii wuu soo fiicnaaday alxamdulilah. maalinta ka dambeysa soo fiicnaanay. 7 kadib iyada meesha waa laga saaray. xaggee tegaysaa marka? 7 kadib markii meeshii laga soo baxay ayuu wiilkii ku dhahay ina mari, xaggeen tagnaa? wuxuu ku yidhi gurigiinii ayaan kugu celinayaa, ii sheeg gurigiinu halku yahay iyo lambaradooda. waxay tiri ma dhici karto inaan meeshaa tago. guriga haddaan gurigaas tago aabahay kawba iga sina uu ii dilayaa, reerkaygu ima rabaan, markii horeba iyaga i tuuray. wuxuu yidhi anaa fikrad kuu haya, ha ka warwarin, ina mare adigu ciwaankoogana keen. ciwaankii bay siisay. gurigii buu tagay, albaabkii buu garaacay. albaabkii markuu garaacay waxaa ka furay aabaheed. waxay ku tiri ha ii sheegin inaadan kula socdo qof islaam. wuxuu ku yidhi haye. wuu tagay. in albaabka markay ku wada hadleen gurigay hore u galeen. guriga markay hore u galeen gabadhii adeerkeeda ordaya ayaa u yimid oo qoslayo faraxsan. wuxuu ku yidhi see tahay xaaladaada caafimaad? waan fiican alxamdulilah. wuxuu ku yidhi soo deg. mayba tiri ma soo degay. aabahay maad rabtaa bay tiri inuu aabahay toogto. ma soo degay. iska daa buu yidhi aabaha ilow, aniga igu hadlay aabaha, soo deg. way soo degtay. gurigii bay gashay. gurigii markay gashay hooyadeed ooyeysa ayaa hagareeyay. markay hooyadeedii ayadeed arkeen, aabaheed oo iyadana meesha daaradda u taagan oo si xun u eegaya oo cadowtinimo oo leh ma toogataa ayaa meesha jooga. isna qolkeedii bay iska gashay. wiilkiiba isna isla hadleen. waxay isku yidhaahdeen ma ogeeyado. gabadhii muddo reerkoogii ayay la joogtay. ilmaheedii kama warhayso. 3 bilood ayaa kasoo wareegtay. ma taqaano dhakhtarkii ilmaheeda kaga timiday, ma garanayso meel ay tagto. haddii ay xataa isla tegleed gurigan kama bixi karto oo waa la ilaalinaya, maba bixi karto. waxaa dhacday wiilkii inuu 3 bilood ka maqnaado. tiyo iska oyda oo murugta adduunka u dhammaatay oo iyada dhanba xaaladeedu adag tahay ayaa waxaa dhacday inuu
lagu yiraahdo maalin mabruuq waa lagu soo doontay nin ayaa ku soo doontay waan ogolahay bay tiri laakiin ilmahaygii inaan arko ayaan rabaa ilmahaygii la keeno waa lagu keenayaa baa lagu yiri ninkaas ayaa ku soo doontay saas ugu way ogolaatay sababtoo ayadu waxay rabtaa gurigan siday uga bixi lahayd ay noloshan u dhaafi lahayd ayay rabtaa waayo iyadu maxay ku jirtaa nolol adag iyo xaalad adag oo gurigan maba seexataba markasta waxay ka baqaysaa aabaheed inuu u yimaado oo aabaheed tiyo hurdo dilo baaskood ku dhufto waayahay bay tiri sidii baa lagu aroosay kitaabka lagu qoray oo maaragtay sheekh loo yeedhay waxaa loo sameeyay xaflad yar oo basiida oo guriga xaafadda adeerkeed iyo aabaheed bas labada family ku saabsan oo kaliya ayaa loo sameeyay markii loo sameeyay sidii ay ninkii ku raacday hadday aragtay banaanka u soo baxday markii maaragtay xafladii waxa loo sameeyay waxaba weeyaan ba subxaanallah wiilkii badbaadiyay waaba weeyaan qofkan aroosay iyada markii hore ma ogeyn oday wiil u ciduu yahay waxay rabtay noloshan inay ka baxdo way faraxday alxamdulilah ayay tiri wiilkii wuu kaxeeyey habeenkii isla arooskiiba waa la kaxeeyey gurigeedii ayaa la geyn doonaa wuxuu geeyey gurigiisii markuu geeyey wuxuu ku yidhi naso iskartaax subaxa ayaan imanayaa anigu howl ayaan leeyahay gabadhii ma weydiin karto ilmaheedii waxay ka baqanaysaa in lagu yidhaa ilmahaagii mar hore u dhintay way iska aamustay gurigii markuu geeyey ee iska oyda dhan way ka faraxsan tahay dhanna ilmaheedii ayaa ka maqan oo way ooyeysaa waxay tiri aroortii markaan soo toosay waxaan arkay bay tiri ilmahaygii oo dhinacayga yaala ayay aragtay ilmahan yaa dhalay iyo ilmahan adaa dhalay ka waran mafaajicadan kuu sameeyey ayuu ku yidhi subxaanallah ilmaheedii iyadii ilaahay baa mar kale kulan siiyey wuxuu ku yidhi anigu ballanteedii waan ofiyey 3 biloodna waxaa igu dhacday duruuf maaragtay aan kuugu iman kari waayey ayaa mashaakil baa jiray aan kaaga iman kari waayey sisterteed ayaan ku soo habsamay laakiin alxamdulilah ballantii aan ku ofiyey aan ku ballan qaaday imikana waxaan rabaa ilmaha waxaan ka xishoonayaa buu yidhi familigeygii dadkii dhakhtaradii waxaasan ka xishoonayaa oo igu yidhi markii aan ku dhahay gabadhan anaa qaba oo ilmahaygi weyaan ilmahani marka waxay igu yidhaahdeen ilmaha sharci u samee oo si rasmiya maaragtay awraaqdii waxaa waa inaad u sameyso gabadhaadii ilmahaaga marka waxay moodayeen buu yidhi anigu xaas baan lahaa gabadhaydii inaan ka qarinayo laakiin anu gabadhayda waxaan furay markii aan u sheegay inaan adiga ku qabo oo maaragtay ilmo adii dhashay aad uur i leedahay ayay gabadhaydii iga xanaaqday oo igu tiri ifur talaaq iga dalbatay aniguna waan furay marka iyagu may ogeyn waxay moodayaan gabadhayda inaan ka qarinayo saas darteed marka waxaan rabaa inaan ilmaha usoo sameeyo warqado gabadhii horena sistamka ka saaro adigii ilmahana sistamka idin geliyo inaan anigu gabadha ilmaha dhalay adiguna xaaskaygii tahay sidii buu sameeyey faamiligiisiina wuu baray gabadhii subxaanallah waxaasoo dhan wuxuu sameeyey gabadh yaroo maskiino 13 sano jirta inuu caawiyo oo ilaahay uga dhigay shimbir waxay dhashay gabadhii waxay u dhashay 13 jirka ahayd wiilkii 5 caruura ayay u dhashay waxay ku nooshahay nolol qurux badan waxay dhahday waa qofkii ugu fiicnaa adduunka ee la kulmo ilaahay ha ii daayo isaga iyo awlaadeydaba wiilkaygii markaas ugu weynaa oo isagu magaciisa ku qoray waxay tiri waa ilmahayga ugu fiican ee ugu baarisan waxay tiri dhammaantood ilaahay ha ii daayo aabbayaasha iyo waalidka waxaan kula dardaarmayaa inay ilmahooga u naxariistaan
hadduu aabbuhu ilmihiisa garab siin waayo uu isagu garab siin waayo yaa u naxariisanaya. caruurtiina u naxariista, ilaahay ka baqa oo iska daaya dulmiga iyo caadaadkani taqaaliidan aad sheegaysaan. ilmihiina ayaa ka qaalisan. anigu dambi maan lahayn. aabahay ilaa imika ima saamaxin. wuu ii xanaaqsan yahay. waxaanu iga saaray noloshiisoo dhan. waan jeclaan lahaa inuu aabahay saamaxo say farxadaydu u dhammaystiranto. waxay tiri masajkan aabayaasha ayaan u gudbinayaa. yoomal qiyaamaha waxaa laydin weydiin doonaa caruurtiina. idinka ayaa ka mas-uula. u naxariista oo dulmiga ka daaya. wassalaamu calaykum waraxmatullah.